maxaad ka ogtahay shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee lagu dilay Mareykanka? Abraham Lincoln waa madaxweynihii 16aad ee Mareykanka. Wuxuu garab weyn siiyay xorriyadda dadka madow ee Mareykanka ah. Wuxuu xilka hayay laga soo bilaabo sanadkii 1861 ilaa 1865. Markii madaxweynuhu galay tiyaatarka ee uu fadhiistay Lee Harvey Oswald. Ninkani waxa uu ahaa ninkii fuliyay dilkii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka John Frank Kennedy sanadkii 1963. Inkastoo waqti yar kadib Mr. Lee Harvey uu dilay nin la oran jiray Jack Ruby. Lee waxaa lagu toogtay magaalada Dallas ee dalka Mareykanka. Dilkani ayaa ka dhacay xarunta guud ee booliska ee magaaladaasi. Xaruntan ayaa si weyn loo ilaalinayay. Booliska Mareykanka ayaa jahawareer iyo kadis ka qaaday sida fudud ee uu ninkani toogashada u fuliyay, iyadoo xaruntan ammaankeeda si weyn loo ilaalinayo. Xirfadda dilkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid cajiib ah oo ay adag tahay inuu qof shacab ahi uu qorsheeyo ama fuliyo. Robert Frank Kennedy wuxuu ahaa ninka ka yaraa John Frank Kennedy, madaxweynihii dalka Mareykanka oo la dilay sanadkii 1963. Jaamacadda Harvard ayuu ka bartay sharciga qareennimada. Dowladdii John Kennedy ayuu ka ahaa xeer ilaaliyaha guud. Robert wuxuu isu soo sharaxay jagada madaxweynenimada Mareykanka. Horaantii sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursiga aqalka sare ee Koongareeska, isagoo xaqiijiyay helitaanka kursigaasi. Isla sanadkaasi dabayaaqadiisii ayuu u tartamay kursiga madaxweynenimada. Robert isagoo ku guda jira ololihiisa doorashada oo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisa ku sugnaa hotel lagu magacaabo Ambassador ee magaalada Los Angeles, ayaa markii uu khudbaddii dhammeeyay isagoo gacan qaadaya dadkii dhegaysanayay, nin la oran jiray Sirhan Bishara ayaa soo dhex galay dadkii uu salaamayay. Isla goobtaana ayuuna ku toogtay kuna geeriyooday Robert Kennedy. Ninkani dilay Robert wuxuu ahaa Falastiini kaga aargoosanayay taageerada Mareykanka uu siiyey Israa'iil dagaalkii 6 cisho ee sanadkii 1967. Martin Luther King wuxuu ahaa maskaxdii ugu weyneed ee aasaastay dhaqdhaqaaqii xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. Wuxuu si weyn dagaal afka ah ugu qaadi jiray kooxihii cunsuriyiinta caanka ku ahaa. Horaantii sanadkii 1968, isagoo taagan deerka hotel dabaqa labaad ah ayaa si xun toogasho loogu fuliyay. Ninkani toogtay ayaa la oran jiray James Earl, isagoo u baxsaday magaalada London, balse kolkii dambe ayaana la soo qabtay. James ayaa diidanaa xuquuqda dadka madow, isagoo u arkayay inaysan xaq ku lahayn gudaha Mareykanka. John Lennon wuxuu ka mid ahaa xubnihii aasaasay shirkadda lagu magacaabo Beatles, oo ah shirkadda ugu caansan ee soo saartay injirka. Waxaa kale uu ahaa xubin u ololeeya nabadda. Wuxuu ahaa nin afmaal ah ama afmishaarnimo Ilaahay hibo u siiyey si fudud inuu dadka kaga dhaadhiciyo nabadda iyo horumarka. Wuxuu doodo badan la galay dad ka soo horjeeda fikirkiisa, kadibna waxa uu kaga xoog badiyay doodii loo wada qabtay, isagoo sumcad bulshada kaga helay hadal yaqaannimadiisa dartii. Sanadkii 1980, goor uu marayay meel waddo ah ee gudaha magaalada New York, ayaa magaciisa ugu yeeray nin isagoo kor u dhawaaqaya. Master John ayaa arkay nin la oran jiray Mark David oo ku soo socda, waxaana soo adeegsaday kooxihii ka soo horjeeday ee mucaaradka ku ahaa. Mark markii uu soo gaaray John Lennon ayuu toogasho ku dilay. Kadibna waxa uu dhex fadhiistay dariiqii ugu dilay John isagoo sugaya in la xidho. Malcolm X, Alxaaji Malik
wuxuu ahaa nin Maraykan madow Muslim ah, wuxuuna ahaa ninkii ka dambeeyey ururka awoodda dhaqdhaqaaqa dadka madow ee Maraykanka. Alxaaji Maalik ayaa bilaabay halgan xorriyadda dadka madow ee Maraykanka sidii kuwa cad ula sinaan lahaayeen. Waxa uu xubin muhiim ka ahaa urur Islaami ah oo Maraykanka ka dhisnaa. Isagoo khudbado ka jeedinaya meel fagaaro ah ayaa niman hubaysani ku soo dhex dhunteen dadkii dhegaysanayay khudbadda Alxaaji Maalik. Kolkaa ayay rasaas oodad kaga qaadeen, isla goobtaa ayuuna ku geeriyooday. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkani, laag saar kuna soo biir haddii aadan weli ku soo biirin kanaalkeena Ogaalsan, lana soco muuqaalada ugu dambeeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.